waxaan joognaa maanta dekada waxay halka la damacsan laga dhigo mustaqbalka gobolada oo iyo Soomaaliland iyo Geeska Afrika ma noqonaysa halkan wax joogta dhalinyaro fara badan oo reer Luqaya iyo wax garadkoodii iyo gudiga odayaashii iyo hogaaminayay ugaaska beelaha Soomaaliya ugaas Cabdi Rashiid ugaas Fadli ugaas Toodi mudaba dadka reer Awdal waxa uu Cabdullaahi meel dhixma laga dhiso ama laga dhisay dekad oo gobolkooda kamid ah Luqaya ayaana hore dhagax loo dhigo oo qardaw dhigay in kale ugaaska halkaas ku soo kormeeray imikana waxa dadka reer Awdal gudiga dibadda ku tashanay sidii ay jidad iyo dekad u samaysan lahayn maanta iyagu muqoofooda ay dhantahay waxaana ku guwaamiyeen cid kasta oo kamid ah in ummadda muslimka ama Soomaaliland inay ka soo qayb galaan dekada dhismaheeda si horumar iyo gaaro halkana maanta waxa jooga salaadiintii iyo ugaasku hogaamiye wax garadkii maalmaha gobolka Awdal iyo Salal sayla cunsan ka soo baxnay halkana lagu duuliyo maanta magaalada Luqaya si fiican dadka reer Luqaya ay ku soo dhigeen halkana ay soo hadlayeen maanta waxaan joognaa halkii dekada laga dhisay degmada Luqaya oo uu joogo ugaaska guud ee beelaha Soomaaliland ugaas Cabdi Rashiid ugaas Fadli ugaas Toodi oo kormeer ku maray gobolada Awdal iyo Salal soo maray magaalooyinka waaweyn qadiimiga sida Sayla iyo magaalooyin kale imikana waxaan ku dhameynay oo maanta joognaa doorka soo galay magaalada dekada ee Luqaya halkana waxa jooga gudi fara badan oo reer Luqaya iyo gudida la socotay ugaasku hogaaminayay iyo gudiyadii kale waxaana uu ugaasku ka hadlayaa hawligiisa halkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkani waa sanadkii hore halkii ay dhagax dhigeen arda ururka markaasi isku xilqaamay in halkan dekedeeni laga dhiso oo ummadeena dhaqaalihii ay u soo celiyaan hadii la hayra dhaqaale meeshii laga heli lahaa maadaama deked weeyaan nidhi waa hungurigi meeshii ay cuntada u soo mareysay marka goobtan aan joogno waa halkii ay sanadkii hore dhagax dhigeen anna waxaan sii xoojinayaa biidmillaahi kariim inaan dhammaan dadka dibadda jooga iyo gudaba in halkaasi xoog la saaro oo dadkeenii looga faa'iideeyo hadii la hayra horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo cid walba marka ka anfici doonta hadii la hayra marka aniguna taasaan sii xoojinayaa insha Allah inaan halka ka hawl galno hadii la hayra wad mahadsantihiin assalaamu calaykum ugaaska dhameeyay oo wax kale loo oranayaa ma jira halkani waa halkii dekada loogu tala galay waxaan anagu idin sheegaynaa intiina maanta noo timid horta waan u mahad celinaynaa kolka koowaad ugaaskaan u mahad celinaynaa inta galbinaysana waan u mahad celinaynaa intii soo dhaweysana waan u mahad celinaynaa haddaan halkan u leexdo nima yahow ugaasow iyo inta la socotay nololi horta de waa arsaaqna waa bad arsaaqna waa bad nima aan bad wax uga soo degin waxana ka doofin nin ma noqdo dikadan waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood khalad u fahmaan oo yiraahaan reerka hebel la yiraaho ayaa samaysanaya inay yahaan baa laga yaabaa ma aha reer hebel ummadda buu u shaqaynayaa hadduu samaroon bilaabay ummadda buu u shaqaynayaa waxaan ugu baaqaynaa inta kale dhammaan Soomaaliland kaleba waxaan ugu baaqaynaa cidii ka soo qayb galaysa way u furantahay haday ka soo qayb gali waayaan maalinta la dhameeyo badikadu ummadda ka dhaxaysay ma aha dikad reer u qufulan ma aha ee sida hal loo dikad ummadeed hal loo ogaado yaan loo qaadan in gobolka Awdal u xidhnaanayso dikadani yaan loo qaadan in Luqaya gaar loogu xidhay yaan loo qaadan in Gadabuursi gaar loogu xidhay dikadan yaan loo qaadan laakiin ummadda noloshu ha gaadho baa la leeyahay ciidii xoog iyo xoolaba kaga qayb galaysa way u furantahay idina waxaan idinka codsanaynaa khaasatan ugaasku maanta haddaad istaagtay tii hore sanad bay qaadatay dhammaadkeegu kugu dadajin mayna dhammaadkeeda bilowgeedaan kugu dadajinaynaa ugaasku bilowgeedaan daahir jaamac ilaa 60kii baan calan qaadanay bal mustacmarkii iskaba jooji abuu noo qabtay waxbuu noo qaban lahaay wuxuu noo qaban lahaa isagoo hal maqnaado ilaa 60kii halkii aan joognay baan joognaa 60kii halkii aan joognaa waxaasina waa tabaruc waxay naga keenay waa tabaruc maanta waan ka duwanahay Soomaaliland maana ayaa la neeyaa Soomaaliland horumarkeeguna wuxuu ku xidhan yahay hadday wada tahay hadday dekad tahay
hadday iskuul tahay haddii waxa weeyaan isgaarsiinta ayaa wax walba ka qiimo badan ilaahay maanta ugaaskeenna noo keenay haddaad tii hore sanad sugayseen annaga tani muddo yaroo gaaban baanay namadiisa yimideen waan saragnay oo waan ballansanayn dabadiina intii iyo boqolaal kale ayaa jooga ugaaska ka dambeeyay war xarig baa wax lagu qabsadaa waan isku xidhannay waad salaamantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحوي إلهي ورد الدنتين نهاي نتصل آمين آمين إلهي الدنتين نهاي نتصل آمين أمدهم علامات قيس واللي بلي قبائل واللي بعلامات بولي علامات دين وإنك وحوي وقاسنا ما يهد علامات دين علامات دين الناس كل كان قنتنو وحول اللي بقى إنه فقدانية لكن ما ضحض الله قد جانية وحوي وقنتن إما وحكلوا اللوجيد دتك سوارن كيس كوصورية هي كالسوني ويا كالسوني دي هدان سميسني وحول اللي بقى سوي إنه سخر مية وحنا ذا وقف فكرتان هريرهن سيد اللوج نول يهاي هي إنه سيدان كن نول دمر عرفور يا دتك كمد وانا يسقاير يعني دتك كمد وانا نولشنا دكتين هالكي مثل ماذا إن عدة ديدني واحد أن نولشنا الدنيا دي بدي بأن الوريري مقادين تا وحنا هين ما أنت الله ما هين إله باوجنا الله هين نول بني فوقرنا يجيب الله هذليه إسكت أوجاسك أنت كل حدا الله هذليه أنا جيب دقيه النبض الله عين وحوي إلهينا وإنه صخري أنتو عيسنو مثل ماذا إن أنا أتخيسنو دنتين أنا أنكرنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أنا بعدين مايو وصلاتين تيدي يعني لما يسي وهذا النوع عليه ميجيتو تريس واحد وباتان إذا صفى الناس صفى الناس وإذا فسد الأمراء فسد الناس هدي تذهب أركتد وعلى يعني هو كاكا والنوع من الجنون هي في جيرانه لو ما حسابك رقبض يعني ما ارتعاف ما هدي هذا أركتد هو كان عادي لنا صفى الناس تذكيو وذا نشاطيسن أو يسكو حدن أو يعني ما ارتع يا ذاك ساي قرحدو الكاسك الصوب هذا أنت سنه قال لهين وحنا نسوقيني أنت ويرينا ما تبي لهين نوكينا يا هدي الله نوكينا تمسكيسها يقف شديسة يعني ما ارتحلك وواجباتك أون راعنه وما يلقوا واجبه يا وطالي نفري طريقي انت سيقول عيني انت اللي جوجي روحوها يعني هو قال الآن ما تان هو قال هينا سوقر بس قرآن تم حكي طريق بيسوى مرتا كويس هجب سلامي يا maxay uga jabinaysaa waa muwaafaqo ya teebwaka ilaahay hogaankeen inoo keenay kii aan naafaca Allah inooga yeero shariya shaashana Allah inooga hayo sharaf dhamaantiina Allah ku shubo xasadkana teebwaad arkaysaan inuguba noloshiina ya kasida oo arkaya ee halka yaani maanta noloshii ummadu ay ku xidhantahay hortaagaya teebwaad arkaysaan dadweynow waa run ya واجب كيس أنا كقاضنا إنها تانا وجوجنا بارتنا ولا شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقب بدنا كسويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا دمانتي مركب الرئيس. مركب لبعض صلادين تا يوكرت كله يا هذا الكبدن كيس يجري. توجو بهيمسن رتي كود علينا وقت هايون هدي بنا آدم كو سجان في عن يكره الضفين هي سكر سونا اسمستان والدلال لك دران ويجاران ماشي الدوريان تاسيوا واحد لبود أوجي هاي علمية بنا آدم كعقل بنا آدم يدي بها باللبود أوجي هاي وياه دقيقة واحد وكأنه كبضن إربط عداد كروك دت ودن تجوده
lagugula dhagayo dhinaca lagula qabsanayo waxaan odhan lahaa war dhaqankaan iska dayno ciddii danta guudna aynu ka hormarino tan gaarka ah waayo tii gaarka ahayd wayna wareerisay inoomana shaqaynayso markii tii guud farahaan kala baxnay waxaan inagu dardaari lahaa danteenna guud aynu qayb ka mida danaha iyo howlahan ka shaqaynayno aan ka dhigno waa run dekadda muddo dheer baa la hadalhayay ciddii ku anfacan doontana haddii la sameeyo ilaahay baa og ummadda oo dhan baa ku anfacani somalilan oo dhan baa ku anfacani etoobiya ku anfacani jabuuti baa ku anfacani dadka dhulka degan oo dhan bay horta anfac u wada tahay dekadaha iyo waddooyinkuba laba kale lahaa cid kastoo horumar danaynaysa waxaan odhan lahaa marka la iclaamiyo inay shacbigu wax dhistaan cid kale maaha waa shacbiga inay wax isku dardarsadaan oo ay dhistaan la doonayay cid kastoo iclaamkaa maqashaa inay gutiga dhiisha iskaga dhigto waa dan guud ee wax ku darsato ayaan aad idinku xoojin lahaa goorta la bilaabo insha allah waana la bilaabi midnimo iyo sharafna waan inoo rajaynaynaa barwaaqaan inoo rajaynaynaa waxaan inoo rajaynaynaa ducadeenu ilaahay naga aqbalo roobka uu daawo abaaruhu dhulkani abaaraha ku batay baryaha dambe naga yaraadaan baan insha allah rajaynaynaa faataxa bismillahi raxmaani raxiim. Comment vous appelez? Je m'appelle Mohamed Hachibokh, je suis né à Djibouti, je suis né à Borama, j'ai toute ma famille ici. Aujourd'hui, je vous ai dit merci, merci. La caresse de Dieu, la caresse de tout le monde, la caresse de notre roi. Il a eu tout, on se souhaite bonne chance. Aujourd'hui, vous connaissez l'emplage, le plus beau emplage, Somaliland, le plus important. Et c'est là, après c'est là, c'est ici qu'on est là aujourd'hui. Il a eu merci, merci Dieu, merci tout le monde, merci frère. On est là aujourd'hui pour poser notre pierre la plus importante ici, le Kaya, où qu'on a vu, où qu'on est là, où qu'on vive notre pays, où qu'on est tout est somalien, Somaliland, tout, il n'y a pas de tribu, il n'y a rien, tout est somalien. On souhaite, Inch'Allah, merci beaucoup. عثمان ظاهر جامع waxaa la yaqaanaa naanays weyn oo xooja la yiraahdo la yaqaana waxa weeye horta hore bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye waxaan hambaliyeenaynaa anoo ku hadlaya magaca odayada deegaanka degmada waxaan hambaliyeenaynaa ugaaskeena ugaas cabdi rashiid ayaanu hambaliyeenaynaa maanta degmada noogu yimid waanad aragteen oo hambalyadeedani tu yacnaan iska leeyahay maahine dee indhahaad aragteen maanta oo dhegaysateen wixii shacbigii degmada ka dhacayay yaad aragteen raallina ay ku yihiin inuu halkaa dego waxaanan oran lahaa intaanan hadalkayga kala bilaabin oo soo jeedin lahaa ugaasku sida uu isku taagay boorka halkii uu degi lahaa ulugaya ka degi lahaana ha istaago oo dhagaxiisa ha dhigto ayaaba leeyahay dadka reer lagu hayaa oo halka ku soo dhaweeyay ugaaska guud ee dalsan ugaas Cabdi Rashiid Gaduudi duqayda reer lagu hayaa oo halkan ugaaska ku soo dhaweeyay ayaa yidhi halku degada dhagax nagu dhigay waxaan rabnaa inaan guriga ugaaska halkii aan ka qotomin lahayn aan lagu hayo uga goyn lahayn ayuu halka oday xooje oo magaca degmada lagu hayo ku hadlay ugaaska halka ku gacan qaadaya halkan oo ku wareejiyay jago uu ugaaska ugu tala galay oo la siiyo aqalkii ugaaska beelaha sabro oo la soo xasalow وانا يرى انفورميشن ماكسيا مي ما دك كعسن يا annaga ka sakow isagoo jir dareey ah waalid oo ah aabahay madeero ah adeerkay kuma
waanu mahad celinayaa waxaanan hambalyo u dirayaa dhammaan dadka ku nool Somaliland daafaha Somaliland Ethiopia Djibouti meel kasta ay Soomaalidu degto iyo mahadnaq weyn baan u dirayaa ugaaska beesha Samaroon ugaas Cabdirashiid adoo waxaad ku jirtaa Soomaha adeer dhalinyaradii Boorama ka soo raacday waftiga ugaaska hogaamiye ku jira haayaan ku jiray waxaan ku jiray waliba dhalinyarta qaban qaabada ugaaska xagga maxaa la yiraahdaa shaqada maxaa la yiraahdaa xagga maxaa la yiraahdaa hawlaha dhalinyarta qabato ayaan ka mid ahaa sidoo kale sidii lagu soo dhaweeyay gobolada iyo degmooyinka soo marteen wallahi si fiican aad iyo aad baan lagu soo dhaweeyay waanu mahad celinaynaa dadka ku dhaqan xeebaha dhamaantood ay ugu horeeyaan Saylac iyo Luqaya Saylac iyo Luqaya imka ku horeyso Soomaa waqtigii hore ma jirtay laakiin ma maqli jirtay sheekadooda maqli dhalinyaradii aad jaamacadda iyo dugsiga wada dhiga jirteen maxaad uga sheekay doontaa markaad ku noqoto insha Allah waxaan uga sheekayn doonaa dhulkan waxa yaala xeebaha maxaa la yiraahdaa waxyaabaha u baahan la dhisto xeebaha halkan adeer bal ka waran dhulka laga tahriibay dhalinyarada tahriibka maad ku dhiirigelinaysa waa dibadda waxa masal dhulka ka shaqeysta may wallahi dhulka shaq in laga shaqeysto u baahan yahay waxa la dhalinyarta shaqeysta maal gashada xoog gashada fikir gashada aqoon gashada ayaa la dhalinyarta assalaamu calaykum anna magaca ku law bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la yiraahdaa Ali Xasan Saciid waxaan ka yimid Ethiopia marka aad u faraxsanahay maanta Luqaya Somaliland oo jooga oo Luqaya iyo Saylac iyo dhulkooda soo arkay oo wallahi ummadii dhan shacabkii iyo dadkii aan kanin midna aad u faraxsanyiin inkastoo waqtigan ugu gabaab yahayna wasxaafadeedka ilaa hadda dhibaatada dhan iyo wax kasta nala soo marayna aad ugu hambalyeynaya adigu waxaad ku jirtaa Soomaha in dhalinyarada ka soo dhalinyarta Ethiopia wasiiba gaar ahaan Jijiga iyo Addis Ababa ka wakiil ah iman ku hadlaya magacooda dhalinyarta aad u salaamaya dhalinyarta Somaliland iyo Saylac iyo Awdalla intuba dhammaanba si fiican bay noo soo dhaweeyeen aad loo uga hambalyeynaa aad baan u faraxsanahay insha Allahna waan dhamaystireynaa intayada iyo taagtayadaba waan maalgelinaynaa waan hanti gelinaynaa wixii dhalinyarana ka taariimayaan dhulkooda ka shaqaysanayaan waxaan mahadnaqalka uga jeedinayaa jirdo oo ah ninkii guriga soo ka qaada ugaaska beelaha Samaroon iyo dekada ugaaska dhagax dhigayo marka waan ugu hambalyeynaa qaybta saxaafadana aad iyo aad u maasantaan ku leenahay oo ku ka mid yahay jirde assalaamu calaykum lageeya garab jooga rasuulka بسم الله الرحمن الرحيم وحن إنكم هنقيا دمان بيري ويل نيري رقي الضمر والشيخ إذا إن أضياش رقمتك ماذا هذا ميشيسكم تبيد يدلي يرضى وحن إنكم هنقيا سيدا شرفت له سيدا كرامة له سيدا حشمين له إدنوكو سود ويسين مقالة اللقحية ليبحية مقالة الليبحية النوكو سود ويسين أنك إيا وفتكي وقاسكو ما دركتي كمدها وقامين إيا وقاسك وقاس عبد الرشيد وقاس روبلي وقاس طوبي ما هاد يعني نيقصي ما دركتي لهم أنك إيا وحانا نيقصي الدعو سيدا إيا السلام عليكم ورحمة الله